dunida waxa ka jira haakaro halis badan kuwaas oo qaarkood adduunka saameyn weyn ku reebay waxay isugu jiraan kuwa macluumaadka iyo waxyaabaha kaleba u jabsan jiray si ay u helaan lacag iyo tiro badan halka qaarkoodna ay danin jirin lacagaha shanta haakar ama jabsade ee dunida khalkhalka geliyay. Number 5 Kevin Mitnick wuxuu dhashay bishii August 6 1963 wuxuu ku dhashay Los Angeles gaar ahaan gobolka California ee dalka Mareykanka. magaciisa saxda ah ayaa ah Kevin David Mitnick wuxuu lahaa magacyo kale oo kala ah Condor the Dark Side Hacker ama hackerkii midooba inta uu noqon dadka jabsada internetyada shaqadiisa ayaa ahayd la taliya dhanka tiknoolajiyada iyo macluumaadka kale ah. Number 4 Matthew Bevan and Richard Bryce labada nin ee reer British ayaa loo yaqaanay Gucci iyo The Data Stream Cowboy waxay caan noqdeen kadib markii ay weerar ku qaadeen oo ay jabsadeen shirkadda dhanka internetka ee Pentagon. ugu dambeyntii waxay awood u yeesheen inay xadaan sawirada sida kuwa goobaha dagaalada. Number 3 Anonymous kooxda loo yaqaan Activities Group Anonymous ama Anon waxa la aasaasay 2003 ilaa xilliga waxay si aad ah ugu ololeynayeen cadaaladda bulshada oo ay sheegaan xorriyadda internetka iyo daahfurnaanta. waxay jabsadeen macluumaad badan iyo wax kasta oo ka socda dunida iyo macluumaadka dalyow badan. Number 2 Unknown Name ama jabsadihii aan la garanayn jabsadaha 5 sano ayay ku qaadatay jabsashada macluumaadyada dhaatooyinka iyo softwareada dokumentiyada iyo macluumaadka iyo waxyaabaha kale oo jabsado waxa uu ka iibgeyn jiray shakhsiyaad kale oo baahi u qaba waxyaabaha uu jabsaday. shakhsigani ilaa hadda cidima garan karto balse dunida waxa uu ka geystay waxyaabo xun wiil iyo gabadh cidda uu yahay ayaa wali aan la aqoonsan. Number 2 Gary Macnon ayaa kamid ahaa jabsadayaasha adduunka kuwa ugu halista badan. jinsiyadiisa ayaa ah boqortooyada Ingiriiska waana muwaadin British ah. wuxuu dhashay bishii Febraayo 10 1966 da'diisa ayaa ah 40. magaciisa saxda ayaa ah Gary Macnon. magacyada kale ee loogu yeeri jiray ayaa ah Solo iyo jabsadaha kombiyuutarada. Gary Macnon wuxuu awood u yeeshay inuu galo militariga Mareykanka iyo adeegyada NASA. 2001 Macnon wuxuu tirtiray xog iyo faylal xasaasi ah oo $700,000 ah. Macnon ayaa shaqadiisa aan ku dardargelin jirin danayna jirin si uu helo lacag.